السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجكينا xoga caafimaad oo maanta aan uga hadli doono bronchitis ama waxa loo yaqaan burukeetada. Burukeetada waa inay bararaan tubooyinka ku dhex jira sababka ee loo yaqaan bronchioles kuwaasi oo keeni karaya in xab badan oo ku sameysmo dhexdooda. Waxayna arrintaas ugu dambeyn ay keeni karaysaa in hawada maraysa tubooyinkaas dhexdooda ay ku marto si dirqi ah ama aysan suurtagal aysan noqon inay hawo marto. Calaamadaha lagu yaqaan burukeetada waxa ugu caansan xab tiro badan oo qofku soo saarayo dhanka sababka soo saarayo, sidoo kale dhawaaq dhanka fiira ah taasi oo sabab u tahay xabka ku jira gudaha, sidoo kale qufac aad u fara badan xilliga dambe ee habeenkii u badan, sidoo kale wuxuu qofku u dareemi karaa qandho, jir xanuun, neefsashada oo dhibta iyo sanbabada oo ka dareemo caburnaan. waxyaabaha sababi karaya burukeetada waxaa ka mid ah in bacteria ay tubooyinka gudaha ee sanbabada ee loo yaqaan bronchioles ay ku sameeydo caabuq ama virus oo kale. Sidoo kale dadka qaba allergiga ayaa u nugul, dadka waaweyn ee caba sigaarka sidoo kale badana burukeetada way ku dhacdaa. dadka qaba burukeetada waxaa badana lagula taliyaa haddii ay waaweyn yihiin ay joojiyaan sigaar cabista. Sidoo kale waxaa badana dadka lagula taliyaa inay ka fogaadaan meelaha ay ka qaadi karaan allergiga sida hawada wasakhaysan, boorka iyo qiiqa iyo wax la mid ah. badana bronchitis ama burukeetada carruurta waxaa u keena bacteria ama viral respiratory-ga ku gaara si fudud kuwaasi oo caabuq ku sameeyo tubooyinka bronchioleska. sidaa awgeed haddii aad carruurta ku aragto xab badan ama shaqar fiiraha waa inaad si dhaqso u geedaa dhakhtarka carruurta si uu ugu soo qoro daawooyinka saxda ah ee lagu daaweeyo cudurrada ku dhaca haweenka gaar ahaan kuwa burukeetada. dadka qaba burukeetada waxaa badana lagula taliyaa inay isticmaalaan biyo aad u fara badan si loo jilciyo xabka ku jira sanbabada gudahooda. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa mawduucayni maanta oo ah burukeetada ama bronchitis wax loo yaqaano. waxaan filayaa in wax badan aad ka fahanteen iyo nabadgelyo tan iyo mar kale oon barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono insha Allah.